xabsiga dhexe ee Soomaaliya ayaa dhisan in ka badan 200 oo sano. marxaladaha kala duwan ee dalku marayay xabsiga waxa uu ahaa mid qaabilayay maxaabiis ku eedeysan dambiyo kala duwan. in ka badan 1000 dhalinyaro ah oo isugu jira rag iyo dumar lagu soo eedeeyay kamid ahaanshaha xarakada Al-Shabaab ayaa ku xiran xabsiga. waana tirada ugu badan ee u xiran eedeynta la xiriirta kamid ahaanshaha xarakada Al-Shabaab marka loo eego tirada maxaabiista kale ee ku eedeysan dambiyada kala duwan sida caasi waalidiinimada ama xatooyada. maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe waqtigan way uga duwan tahay midkii soo maray waayo hore. subax kasta waxay u shaqo tagaan warshadaha kala duwan ee xabsiga iyagoo ka shaqeeya farsamooyinka muhiimka ah dalka sida alxanka iyo sameynta agab xafiisyada. bini'aadamka ayaa looga faa'iideysan karaa wadooyin badan waayo waa mid u nugul fahamka wax kasta oo uu baranayo. waqtiyadii hore maxaabiista xabsiga dhexe ku jira ayaa ku koobnaa qolalkooda iyagoona dhaqdhaqaaq ku sameey karin xabsiga gudihiisa. laakiin markaan mid kasta waxa uu baranayaa waxa uu jecel yahay inta u dhiman xilliga uu xukuman yahay. marka xukunkiisa dhammaadana waxa uu noqonayaa mid la xirfad ku shaqaysto. Bashiir Muuse waxa uu kamid ahaa maxaabiistii ku xirneed jasiiradda Seychelles isagoo ku eedeysnaa burcadbadeednimo. dawladda Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay. haatan isagu waxa uu ku xiran yahay xabsiga dhexe waxaana ka mid yahay farsamayaqaanada ugu xirfadda fiican. isaga ayaana bara farsamada maxaabiista kale ee la xiran. lagu lahaa birahan oo shabakada arkaysa oo noocyada kala duwan leh oo nambarada kala waaweyn oo kala duwan leh sidaas daraadeed baashan waa laxamad iyada waxaan oo dhan qalabkan hadda arkaysid oo meesha oo dhan iyada la soo keenay iyadana ma garanaysaa waxa soo idin lagu sameeyo marka intaas ayaan qabanaa waxyaabahaas soo saarnaa wixii marka loo baahdo oo baahiyo taagan ayaanu soo saarnaa oo materiyaalaha oo naloo diro haday noqon lahayd ganjeelaadka haday noqon lahayd daaqadaha haday noqon lahayd shabakada noocan oo kale iyo haday noqon lahayd sariiraha iyo waxyaabahaas ayaan soo saarnaa barbashigan noocaas weyn. kadib markii ay soo shacbaxday wax soo saarka maxaabiista xabsiga dhexe dhammaan wasaaradaha dalku waxa ay noqdeen kuwa dalbada agabka ay soo saaraan maxaabiistu kaasoo ay ka faa'iideystaan xafiisyada dawladdu iyadoo ay jirto wasaarado hore loogu soo qalabeeyay xafiisyadooda. waxaan sameynay wasaaradda waxbarashada kale anaga dhisaynay kaydka oo hubka military anaga dhisayno waxaan kale command bluzio anaga iyada nafteeda aan qalabeynay oo haweynay gobolka meelaha qaar ka caawiyo ka sameynaa qalab xafiisyada waxsan ka caawina inta badan aada maxkamadaha waa dalab noocaas waa helnaa wasaaradaha qaar على ورشة waxaa u shaqo tagto 25 ilaa 30 maxbuus oo wax lagu barayo total waa 5 lagu dhufto 35 waxay maanay 150 maalinka arday wax barasho oo soo gashay. maalmo adag ayay u ahayd maxaabiis badan oo muddo badan ku xirnaa xabsigan iyagoo u soo joogay waqtiyo kala duwan laakiin marba marka ka dambaysa waxa iftiimaysa rajo midaas oo bedelaysa wajidii ka horeeyay ee xanuunka badnaa. waxay tahay maxaabiistu inay wax bartaan inay ka baxaan caburkii qolku haynta inay waagi hore waxay ahaan jirtay bur iyo maxbuus waa qalin iyo maxbuus maanta macallin iyo ardayaan u rogna dhinacaas bur iyo maxbuus aheed macallin iyo ardayaan u rogna qalin iyo buugaan u rogna ilaahay idinkiina way noo sii soconaysaa iyadoo kasii weyn waxaan rabnaa qofku isagoon cadaab ku jirin markuu ogaado in la xiro inuu hamigiisa saaro inuu wax barto. That is the boy kaasi waa wiilka who kaaso is my brother walaalkay magaalad. mid labaad she is the girl ayadu waa gabadhii who taaso god heshay the first prize hadiyadii uu horeysay gabadhii heshay waay. maxaabiista xabsiga ayaa loo qeybiyay qaybo kala duwan iyadoo mid kasta oo baranaya waxa uu jecel yahay sida farsamada gacanta aluminiyumka iyo waliba samaynta fadhi carabeedyada. fasalkan haddana aad jeedaan ee casharka qaadanaya waa fasalka ugu sarreeya xabsiga dhexe waana fasalka toddobaad waxayna qaateen waxbarasho nidaami ah. waxay doonayaan rajooyin badan ayaa maskaxdooda ka buuxaysa sida inay xilliga u dhiman xukunkooda inay halkan ku qaataan waxna bartaan si markay banaanka ugu baxaan ay u noqdaan kuwa bulshadooda la falgalo oo aan ka dhicin nolosha qaybna ka noqda horumarka iyo wali wax soo saarka wadanka. waxbarashadu waa wadada looga baxay jahliga bini'aadamkuna u baahan yahay marxalad kasta oo ku sugan yahay. qaar ka mid ah maxaabiista iyo maamulka xabsiga dhexe ayaa isla gartay in muhiim ay tahay in maxaabiistu helaan waxbarasho si iyagoo aqoon leh ay bulshadooda dib ugu laabtaan.
waabarkii waxay aadaan maxaabiistu iskoolka nidaamiga ah ee ku dhex yaalla xabsiga galabtiina waxa ay bartaan kombiyuutarka oo ah xiisad gaar ah oo laga barta xabsiga gudihiisa macallimiinta wax ka dhiga iskoolka rajo ee xabsiga dhexe waxay ii sheegeen inay gaareen ilaa heer jaamacadeed iyagoo dhammaysan jaamacaddana la soo qabtay sidaa darteedna ay uga faa'iideynayaan cilmigooda kuwa aan weli wax baran ee xabsiga kula xihan annaga waa isku soo noqonay taliye kale la magacaabay runtii asaga inay meeshii hawshii kama uusan sii wadin oo inoo maraysay marka muhiimadda waxay noqotay anaga inaan hadda iyo kow iyo asaas bilaawno 13 waa tashanay waxaan ku fikirnay in jaamacad aysan imaan karin meesha iyada uusan ka jirin waxbarasho asaasi ah horta si dugsi sare loo helo waa in dugsi dhexe la helo dugsi dhexe si loo helo waa in dugsi hoose la helo ugu horreyn waxaan go'aansanay marka in anaga aan wax bilaawno si anaga aan u gaarno heerka iyo darajada aan rabno dhalinyaradu waxay dunida ka yihiin awood lagu tashado wax soo saarkooda balse Soomaaliya oo soo martay dagaallo ka dib dhigay dunida dhalinyarada ku nool waxay ehel la noqdeen dagaalada iyo dhibaatada dalka macallimiinta wax ka dhigta iskoolka rajo ku dhowdu waa maxaabiis kuwaasoo la kulma arrimo ka yaabiya xilliyada ay waalidkood ku dhahaan waxaan nahay macallimiin maxaabiista wax ku bara xabsiga koowaad aan bilaabin iskuulka waxaan la ahayd wax macnaha macquul gal ahayn xitaa yani waalidiinta markay imaanayeen waan la yaabanaa xabsiga sidoo wax u bartaan kadib marka ka dhaadhicinay waxaan waa wax ilaahay na baray cilmiga wax la sadaqsan cilmiga ugu muhiimsan marka anaga ardayda wax kama qaadano ayaan ugu tabarucnaa ay wax barnaa waxaan soo barnay yaan ay barnaa Farxiyo Cali waa mid kamid ah dumarka xabsiga dhexe ku xiran waxa lagu xukumay 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu soo eedeeyay inay ka tirsanad xarakada al-shabaab waxayna ku dhameystay xabsiga dhexe 2 sano oo xarig ah maalin kasta howlmaameed waxay ka dhigataa tolmada dharka iyadoo intii ay joogtay xabsiga ku baratay sida dharka loo tolo xirfadda ay 2 sano ay xirneed Farxiyo ku dhex baratay xabsiga waa inay baratay harqaanka sida loogu tolo dharka kan aan hadda baranayno waxa gacan weyn ka geystay hay'adda ICRC ayadana bartay waxaan baranay hadda muddo 4 bilood ah harqaankina waan dhameeyay waxyaalihi aan ka bartay oo tolmadooda kamid ah waxa kamid ah xijaabkan hadda aan wato kale igoonada ana gacanteeda ku tashay saraawiisho kale shaararka goonooyinka toobabka dumarka ay xirtaan suudadka ay nimanka qaataan fudashaariga intaba waan baranay waxaan rajaynayaa haddaan inta ka baxo Ilaahay qadaro inaan ku tasho harqaankan aan kuna shaqeysto dan waxa ku gudbaldigayo wax kamid ah kooxaha ka dhisan xabsiga dhexe oo la yiraahdo lambar 6 waxay qaadeen koob loo dhigay si sagootina u dhigay yar saaxiibkooda oo doonayay inuu ka baxo xabsiga oo dhameystay xilligiisa xabsiga dhexe wuxuu ka mid yahay waa xabsiyada caalamka kale sidoo jeedana waxa ka socda kubadda cagta waxayna sanadiiba loo dhigaa 2 jeer koob kubadda cagta ah naftu waxay u baahan tahay madadaalo si ay u hesho farxad halkan waa garoon banooniga lagu ciyaaro oo ku dhex yaalla xabsiga daawadayaasha ciyaartan iyo kuwa dheelayaba waa maxaabiis kulanka dheelistiisu waa mid maxaabiis uga gol leeyihiin sagootinta maxbuus muddo 5 sano ku dhameystay xabsiga kaasoo dib u helay xorriyadiisa Umar Maxamed Raagi oo ah ninka la sagootinayay maxaabiista ku dhow waxay iigu warameen inuu ahaa qof ka shaqayn jiray nabadoonnimada inta uu ahaa maxbuuska dhigantahay walaalahay maxaabiis Soomaaliyeed oo ila dhibaataysnay oo maanta ka tagayo waxaan jeclaystay inay sagootiyaan iyagoo waa iga aqbaleen guulaystayaasha koobka sagootinta ah ee ka dhacay xabsiga dhexe maxaabiistu saaxiibkoodu waxay u muujiyeen inay la wadaagayaan farxadda xorriyadda uu dib u helay ugu faraxsanaa maanta ciyaarta wanaagsan oo halkan ka dhacday ciyaar aad iyo aad u maamuusan ahayd oo aad u qurux badan waxaana aad ugu mahadcelinaynaa maamulka xabsiga oo bandhigan dhinac ka soo abaabulay aadaan ugu faraxsanaa kulanka inaan ku guuleysano si kastoo maxaabiistu u haystaan nolol aan waxba ka duwanayn midda qofka xorriyadda haysta haddana in ay la midoobaan ehelkooda ayaa uga dhigan waxa dunida ugu qaalisan qaarkood maxaabiista iyagoo dhalinyaro urduna ayaa lagu xukumay xabsi daa'in waana dareen xanuun badan oo u baahan in dib loo eego kiisaska ay ku xiran yihiin maxaabiista si kuwa badan oo dulman ay dib ugu helaan garsoor cadaalad ah Maxamed Ciise Koonaa Goobjoog Muqdisho